الرحيم maanta waxaan nimidnay tuulada hol oo degmada Boorama waxoogaa 2 kiiloomitir 5 kiiloomitir 6 kiiloomitir jirta waxa xafiiskii aan ka furnay tuuladani hol deegaanka hol waa runtii xafiiska xisbiga kulmiye waxa ku tabarucay mudane Cumar Ilaahay Jimcaale oo si mutadawacnimo u furay xafiiskani ereyadan oo dhan xafiis male marka laga yimaado Boorama waxa weeyaan ereyadan galbeedka oo dhan xafiiskeedii buu noqonayaa xisbiga kulmiye loogu shaqeyn doonaa hadii Allah uu wada leedmo waxaan u mahadnaqayaa marka hore mulkiilaha ku tabarucay xafiiskan ee halkan uga furay aad iyo aad buu mahadsan yahay mudane Cumar Ilaahay oo runtii kaalin weyn ka qaatay inuu hirgeliyo oo fududeeyo isagoo si mutadawacnimo runtii ugu furay xafiiskan bulshada deegaanka ku nool si ay ugu shaqeeyaan ama taageeradooda ay ugu muujiyaan xisbiga kulmiye xafiiskii ugu horeeyay galbeedka iyo koonfurta magaalada Boorama oo deegaanka ugu ballaaran ay dadku degayn marka laga yimaado magaalada kii ugu horeeyay halkan uga furna weeyaan kuwa kalena insha Allah inaan furnaa baan rajaynaynaa waxa weeye xafiisku midabo uu furnaa laakiin xarika jarka hawlihii oo badnaa awgeed baan u haleeli weynay gudoomiyuhu u haleeli waayay marka waxa weeyaan waxaan rajaynaynaa in dadweynuhu ay fursadan ka faa'iideystaan ay noqoto meel ay ka hawlgalaan oo ku kulmaan oo ay xogta isku weydaarsadaan hadii la hadmo marka waxa weeye inagu maanta sidaad wada ogsoogtiin bariga galbeed dadku waxay ku xidhmeen xisbiga midnimada iyo kulminta dadka Soomaaliland kulmiyay waxa weeyaan laba qof lama kala dooranayo waxa la kala dooranayo waa mabda iyo maxaa ugu jira xisbiga gobolka Awdal waxa maanta farxad weyn ah inaan imaado iyadoo laga furayo xafiis cusub deegaankaygii holholka aad buu mahadsan yihiin Axmed Muumin Saad Cabdulqaadir Daahir Oojor iyo Cumar Ilaahay oo igu soo casumay inaan ka soo qayb galo furitaanka xafiiska cusub waxna wada salaamaya ummadda Soomaaliland oo dhan ay ragga mas'uuliyiinta ugu horreeyay sheegeen waxaynu joognaa holholkii oo runtii galabta waqti dambe aan hadana go'aansan in xarika ka jirno oo ay tahay maanta maalintii ololaha xisbiga kulmiye u lahaa gobolada Soomaaliland oo dhanba runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo oo ku soo beegmo maanta xarika jarka xafiiska ku yeelan doono deegaankan oo runtii halkan meel runtii aad u baaxad weyn waliba goobtan joogno waa goobta ay taalo sanaaduuqda laga codeynay hadhow goobtii diiwaangelinta laga galay waa goobta sanaaduuqda hadhow la keenayo waa goob mar walba muxuu ahaayay cod ku leh degmadan Boorama waa meel istiraatiiji ah waa meel muxuu ahaayay xisbigu ay ma taageerayaasha xisbiga aagan ku dhow ay runtii u baahnayeen in xafiis ay ku kulmaan oo ay iskugu yimaadaan oo ay ku kala warqaataan oo ay taageeradu ku muujiyaan runtii way u baahnayeen laakiin waqtigan waa waqti habeen runtii ku soo beeganay hawlaha dadtood aad baan runtii ugu bogaadinayaa ama ugu mahadcelinayaa taageerayaasha xisbiga degmo